soo dhawaada daawadayaal waxaan idin wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku tagayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maxay kaga dhigan tahay maamulka ACC qaatumo safarka ra'iisul wasaaraha oo ku tagayo magaaladaasi soo dhaweyntii ugu dambeysay iyo qabanqaabadii ugu dambeysay ee ku aadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku tagayo halkaasi ayaa sidoo kale idin la wadaagi doonaa sidoo kale guusha ay gaareen reer ACC qaatumo ayaan sidoo kale muuqaalkan idinku wadaagi doonaa safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib miyaa la aqoonsan doonaa reer ACC qaatumo mise maamulku meel gaar ayay sii ahaan doonaan sidoo kale muuqaalkan ayaan idinku wadaagi doonaa balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto sina share gareyso saaxiibadaadana la wadaagto mahadsanid magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo ka aramiyo maamulka kumeel gaarka ACC qaatumo waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana halkaasi ku soo qulqulaya wafuud kala duwan oo ka qayb qaadanaya soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale wariyaasha madaxa banaan ayaa lagu arkayaa magaaladaasi waxayna qayb ka yihiin wafdiga hordhaca ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku soo dhaweynaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in maalinimada biritaa uu gaaro magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool markii uu gaaro ra'iisul wasaaraha halkaasi wuxuu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madaxda ugu sareysa maamulka gobol gaarka ACC qaatumo iyo garaadada ka soo jeeda halkaasi inta uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha halkaasi waxaa laga hirgelin doonaa mashaariic kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya halkaasi ka hirgelinayso ka xukuumad ahaan waxay kaga dhigan tahay guul weyn maadaama dhowr sano kadib ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee Soomaaliya uu tagayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale halkaasi waxaa gaaray ciidamo fara badan oo sugaya amniga ra'iisul wasaaraha gaar ahaan kuwa goofi casta oo qayb ka ah ciidamada halkaasi ku sugan ee sugaya amniga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxaa halkaasi lagu arkayaa eeyaha waxbaara oo ay wadato dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqonaya amniga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya guul weyn ayay kaga dhigan tahay safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku tagayo magaalada Laascaanood maamulka ACC qaatumo maadaama safarka ra'iisul wasaaraha kadib maamulkaasi uu hoos tagi doono dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu qayb ka noqon doono maamul goboleedyada hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu heli doonaa aqoonsi dhameystiran waxa uu sidoo kale qayb ka noqon doonaa maamul goboleedyada dowladda federaalka Soomaaliya hoostaga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee ka baxa gudaha Soomaaliya ee taga magaalada Laascaanood kadib dhowr sano halkaasi maamulayeen maamulka Somaliland ayuuna farxad gelinaynin safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maadaama halkaasi uu ku soo dhamaanayo gooy-sutaaga ay damacsaneed Somaliland baraha bulshada waxaa lagu arkayaa fariimo kala duwan ay dirayaan reer Somaliland oo ku aadan safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya dalmideeye Xamza Cabdi Barre sidoo kale muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya sawiro lagu xardhay guud ahaan magaalada Laascaanood si kastaba ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalinimada biritaa ku wajahan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wixii ku soo kordhay safarka ra'iisul wasaaraha muuqaaladeena dambe ayaad ku daawan doontaan mahadsanidin